السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك joogtiin walaalkii ka bayar maxamed nuure Soomaali aad u tiro badan ayaa sawirka madaxweynaha luuqa ugu soo diraysa qolaba sibay uga hadlaysaa aniga marka walaalayga Soomaaliyeed oo sawirka madaxweynaha luuqa ugu soo diray qancinaya ayaa dhowr waray ka leeyahay horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka kaliya ee aaminsanahay dagaalka nimanka shayaadiinta lagula jiro inuu dhab ka yahay alla ilaa waxa soo labay qorqoor waan u bixiyay halyeeygi galmudug dadka reer galmudug inta ogna waa ogtahay intaan ogayna haddaan u sheegayaa qorqoor hortiis galmudug awood loo cudud lama jirin toobigayga sina ka leexdo doonima madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaalka nimanka shayaadiinta lagula jiro dhabbow ka yahay sidaad u jeedaa walaalkayga Soomaaliyeed oo ka dar aliya daacada dantiisiiba uu iloobay tintiisiiba uu iloobay Soomaalidii la rabay inay garab siido oo aan u wada istaagno annagoo og dadka shacabka qulubtoodu inay Xasan Sheekh Maxamuud maanta la jiraan haddana kuwa siyaasiyiinta ee ku hareeraysan ee u qoslaya ee taagan nimanka waa soo afjarayna ayaa wallahi jilaafaynaya waxaan soo ogahay on ku jiifaa fulay xantiisa ma moogay Xasan Sheekh Maxamuud nin war moog maaha kuwa jilaafaynayana wuu ka cabsanayaa Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisii hore ayaa macaalad aad u tiro badan lahayd si aysan dawladdiisaanu macaarad u yeelan wax kasta uu sameeyay waana ku marqaatiya Xasan Sheekh Maxamuud markiisa loo doortay dadkii uu ku casuumayay dawladdiisa oo dad aan dawladnimada wax ka aqoon oo xitaa aan munaasab ahayn xarumaha dawladda iyo sharafta qaranka in lagu dhex arko iyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada ku dhex casuumayay intaana waxay ka ahayd yaa lagu macaaradin maantay wixii la soo siiyay la aaminsan yahay laakiin bili aadan inaan la dharji karin waxaad ogaan doontaan maalintay ka dhamaato dhac soo dhahaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu tintiisa jara iyo waqti u waayay dagaalka nimanka shayaadiinta lagula jiro dhabbow ka yahay hamin iyo maalin buu u soo jeedaa isagoo awoodo inuu guri qabow iskaga dhex jiro oo mukayfku ku socdo oo lugaha is dul saarto ayuu dhuusan mareeb intaasoo maalmood 2 bilood dhex fadhiyay ayuu meesha kutaanku ku cunayo injirtu ku cunaysay madaxweynaha annagii qaranka weeye annagu haddaynu shacabnahay Xasan Sheekh Maxamuud waa wadanaa annagu haddaynu shacabkanahay Xasan Sheekh Maxamuud waa wadanaa qof kasta oo nimanka shayaadiinta la dagaalaya oo aaminsan in la burburiyo shacabka Soomaaliyeed nimanka shayaadiinta dhibeena garabkiisa taagan yihiin baaq labaad iyo baaq saddexaad iyo mid afaraad iyo mid shanaad baan u dirayaa madaxweynaha si dagaalka nimanka aan kula jirno u najaxo war adeerow dadka ka hoos shaqeynaya iska baandhe war kuwa ku jilaafaynaya iska baandhe war madaxweyne kasta oo kursiga yimaada ma xuma farmaajo xun baa lahaydeen Sheekh Shariif baa xun baa lahaydeen adiga xun baa lagu lahaa tookadii hore kulligiin maadna wada xumayn dadka aad shaqaalaysiinaysiin oo hantidii dawladda dhacaya oo waxay rabaan sameynaya oo systemka dawladdanada wali jilicsan awoodda yeelan ku tagrifalaya oo waxay rabaan sameynaya kuwa weeye kuwa waxalaynaya ee madaxweyne kasta ee yimaada ee kursiga ku fariistaaho wax wanaagsan inuu sameeyo oo magac ka haro oo dawladnimada Soomaaliya loo taaglaayo lugaha u taago ayuu jecel yahay laakiin baash waa la fogaataa nin walba saaxiibadiisu meesha keena kuwa uu keenaya ayaa u qoslaya oo jilaafaynaya oo diidan horumarkiisa oo diidan ninka liya dawladnimadii Soomaaliyeed oo dan ugu jirin maantay ummadda Soomaaliyeed dawlad inay hesho maantay su'aal baan ku weydiinayaa qofka isdaba marinta laga yaabo bishii inay ku soo gasho 500 1 milyan 5 milyan 6 milyan 10 milyan qofka isdaba marin ku soo galayso isagoo dawladii ku jira maanta system dawladada fadhiya hadii la helo mushaarkiisa wax ka badan aan helayn ma ka yeelaya marka dawladdu ha dhisanto qofka musuqmaasuqa u bartay ee ganacsigiisa iyo guryaha u dhisan iyo wax kasta ay musuqmaasuq ku dhisan yihiin ma ka yeelay kula tahay adiga aynu saa yeelno hawshi dantiisa oo fiirsanaya adduunku waa 9 marnaba adduunku 10 ma noqdo waxba ka dhiman adiga ay daawanaya waxba ka dhiman noloshaada aniga waxba iga dhiman qof walba waxba ka dhiman oo isleeyahay buuxi waxba ka dhiman oo isleeyahay marka 5 sano soo socota waxa buuxiyo dawladda dambe daacad la shaqay dadka noocaas ayaa dawladdu ku jira
xildhibaano aan isbedelino meesha iska soo fadhiya dhowr iyo 10 sano jira oo macangagoobo miciye yeeshay waxaasoo dhan madaxweynaha jilaafaynayaan laakiin maalinta xasan sheekh maxamuud rag aanan halkaan aan carabka ku dhufanayno kow iyo laba dhahayn aw baandheeyo maalinta baan ogaanayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud nin geesiyo inuu yahay oo in la macaarado iyo in la macaaradayn kala jeclayn dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa qof kasta oo maanta aqli Soomaaliyeed ku jiro wuxuu xaq u leeyahay madaxweynaha inuu garab istaago salaanka hadduu ka dhaco oo wadada hadda uu ku joogo oo ka leexdo inaad macaarada xaqaad u leedahay laakiin qodobka maanta uu ku mutaysanaya inaad taageertid waxa weeye nimankii shayaadiinta ay dowladnimadii diidanayay ayuu doonayaa inuu xididada u siibo intaaba mudan inaan ku taageerno kor iyo hoos madaxweynaha weyn wadanaa muuqaalkan sheer garay walaalo tiro badan sidoo uu gaaray aad iyo aad baad mahadsantiin